Abayey ayaa xukumi jiray keynta mid cad iyo mid madow. Xiriirkooda aad buu u xoogganaa, balse saaxiibtinimadoodu waxay dhib ku noqotay dawacooyinka, maadaama midnimadayada ay ku qasbeen inay ku noolaadaan wixii hadha. Maalin maalmaha ka mid ah, hogaamiyihii dawacooyinka ayaa u yimid dawaco Fox, wuxuuna ku yidhi, haddii aad labadayay isku dirto, waxaan kuu ballanqaadaynaa inaanan marnaba ku waxyeelayn. Dawacadiina way aqbashay. Maalintii ugu horraysay ayay u tagtay yeygii cad, waxayna si hoose ugu tiri in yeyga madow uu sheegay inuu nool yahay oo keliya caqligiisa awgiis, haddii kalena uu hore u dhiman lahaa, taasoo keentay in yeygii cad aad u xanaaqo. Maalintii xigtay ayay u tagtay yeygii madow, waxayna u sheegtay in yeyga cad uu ku faanayo inuu isaga nool yahay xooggiisa awgiis oo la'aantiis uusan waxba ahayn. Beentii ayaa sun noqotay, labada yeyna way dagaalameen, ugu dambayntiina way kala tageen oo mid walba keligiis ayuu u noolaa. Taasi waxay ahayd fursaddii ay dawacooyinku sugayeen, waxayna weerareen yeygii cad oo keligiis ahaa, kaasoo soo saaray qaylo xooggan oo ka dhex yeertay keynta. Meel fog, yeygii madow oo la socday ilmihiisa ayaa maqlay qayladii saaxiibkiisii hore. Isla markiiba wuu u cararay dhanka codka, isagoon wax hadal ah oran ayuu weeraray dawacooyinkii, kuwaas oo cabsi darteed kala cararay una baxsaday. Yeygii madow wuu jeestay wuuna socday isagoo aamusan, hase yeeshee ilmihii ayaa weydiiyey sababta uu u caawiyey yeygii cad iyagoo iskhilaafsanaa, wuxuuna ugu jawaabay si deggan in inkastoo ay xanaaqsan yihiin ama ishayaan, aysan marnaba oggolaan doonin in dad kale ay ka faa'iidaystaan khilaafkooda.